asalaamu calaykum markaan naga daawanaysiin oo wanaagga qoyska aala u barateen wararka ugu dambeeyay barnaamijka arrimaha bulshada. Ciidamada booliska Garowe ayaa xabsiga u taxaabay fanaan Sharmaake Cabdinaasir oo loo garan og yahay Sharma Boy kadib markii uu maantay barqadii shil ku galay duuleedka magaaladaasi. Shilka ayaa ka dhacay kadib markii uu rogmaday gaari uu waday Sharma Boy kaasi oo sababay dhimasho hal ruux oo dumar ah iyo dhaawac. Sharma ayaa loo heystaa in uu mas'uul ka yahay shilkaasi gaari maadaama uu wada ka ahaa gaarigaasi oo ay saarnaayeen koox fanaaniin ah. Gaariga oo ahaa nooca raaxada ah ayaa ku qalibnay deegaanka Buurawadal oo waqooyiga kaga beegan Garowe, halkaasi oo ay ku dhimatay gabar lagu magacaabo Saciido Jaamac Mire iyo dhaawaca Cabdinaasir Shale. Waa kan Kaanshaanle Sare Maxamed Jaamac Aadan oo ah taliyaha ciidanka booliska gobolka Nugaan ayaa faahfaahin kooban ka bixiyay asaga oo u xaqiijiyay in fanaanka Sharma Boy uu xiran yahay. Sharmaake Cabdinaasir Maxamed oo ku magacaabay Sharma Boy gaarigaasi waa gadoobay waxaa ku dhintay Saciido Jaamac Mire sidoo kale waxaa ku dhaawacmay in magaciisa Cabdinaasir Axmed Shaale hal qof baa dhintay gabar dhaawacu marka waa imisa waana uu xiran yahay gacanta booliska jira insha Allah kiiska waa la baari doonaa waqtigan dheerayna soo rasmi loo baari doonaa. Marka shilku haddii baaritaan la sameeyey maxaa sababa la leeyahay? Walaal shilka haddii wax la sameeyo hadda kama hortagi karo kolle gaari waa shilku iska dhacayo ninkaan wadadaas inay ku shaqeeyeen doonaas marka Sharma Boy hadda xagee joogaan? Sharma Boy hadda saldhigga Garowe ku xiraya dhanka kale taliyaha ayaa u xaqiijiyay shacabka Soomaaliyeed in Sharma Boy cawada ku hayn doono xabsiga magaalada Nugaal. Sharma ayaa waxaa loo heystaa dilka Allah u naxariistay Saciido Jaamac Mire oo maantay ku geeriyootay shilka ay galeen Sharma Boy iyo fanaaniintii kale. halkaan naga daawanaysiin oo wanaagga qoyska Allah ugu barateen wararka ugu dambeeyay barnaamijka arrimaha bulshada. fadlan hadaan cusub subscribe habeenkana ku wacnaado aan u duceyno walaasheen Allah u naxariistay.